السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته وإذن سلامة ميل بعد الدنيا كجوجتان مقعيقة وحفصة هدي تمكي كورس أجانا كاسو بوقنس فترة سبسكرايب إيسار هوراد إلي جوجتو كمات سانتاي maanta waxaa sameyn doonaa xalwadii ciida waa 1 kiilo xalwo ah si aad u fudud u sameyn doonaa insha Allah isla socod wanaagsan sida ujeedaan waxaa ku haysanaa alaabta ka sameeyeen waa kiilo sokor ah koob waranka ah shacfaraan 5 koob oo biyo ah iyo subagaas haysta ani iyo joos iyo heel insha Allah intaas ayaa ka sameyn doonaa biyo ayaa cabiranaya 4 koob oo biyo ku shubanaya kiilo sokorta ayaa ku dara dabka ayaa saarnaya koobta shanaadna warangada ayaa ku qasi doona dab medium ayaa ku kari doona hadaa dabka iska dheerista xalwada ka gubanaysa insha Allah wuxuu saarnaa doontaa qadar adi 1 saac oo kaamil ah 1 saac kadibna xalwadeena waa diyaar insha Allah. How will you know that Allah loves you? I'll give you 6. Number 1, you will feel His love daily and you will feel it increasing. It is impossible for you to love Allah and you don't feel His love. Remember that. Number 2, you will find love from the acts of worship increasing. You start loving acts of worship more. You'll just love them more. You don't even have to try. You just, man, why am I loving to pray all of a sudden? Why is it becoming so special to me? Number 3, you will find hate and discomfort in disobeying Allah. It'll increase. The more and more you'll just start disliking. I don't know, the friends that used to take in the bad place, I don't feel like going anymore. Why, what's happened to you? I just don't like that stuff. Number 4, you will find yourself talking to Allah more often and without hesitation. I saw a little clip of a worker in Medina who cleans. You know, those workers, nobody really asks about them. He's sitting there in his blue outfit in the Masjid al-Nabawi and he's talking like this. Okay, so you can see it's like he's talking to some invisible person in front of him and saying, this is what I can understand. I said to him that and he kept on doing that and I went this way and that happened and I tried and I don't know what to do. Like that, that's what it looks like. He's talking with Allah subhanahu wa ta'ala as if he's talking to a friend. Do you understand? When you can talk to Allah like that, you have a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. What a beautiful, beautiful thing for someone to reach that point. Number 5, you will feel a sense of inner peace. Yes, on the outside things don't go your way. You'll go through pain. Sometimes you go through worries. In fact, worry is a sign of Iman. You probably think, what? Worry? There's a difference between worry and anxiety irrationally when you don't know what it is you're worrying about. But if there's something real and you worry about it and you rely on Allah, you get rewarded for it. And Rasul went through worries, very, very hard, but it was real. And you rely on Allah subhanahu wa ta'ala, you turn to Allah, you get rewarded for that. You get rewarded for your sadness, you get rewarded for your little pain, you get rewarded for a pick of a needle, you get rewarded for your fears, something really and you're afraid and you turn to Allah. You get rewarded for your something sadness of the past, fear of the future, pain right now. You get worried from people harming you or hurting you. All of that, inshallah, you get rewarded for. And lastly, you will love those He loves. A blessing, not a seeking. Meaning, you'll find your heart drawn by itself. Brothers and sisters, love is not something you seek. Love comes as a blessing from Allah through the treatment and actions. If you make your time money, then sorry. Even the greatest of philosophers and people of the past, even non-Muslims, have all said, if your time is money, then your life is cheap. Why? What can money do for you? Yes, it can buy you, it can pay for your bills and make you financially free, but it doesn't buy love, it doesn't buy your family, it doesn't buy you time. Can you buy more time in life with money? It doesn't really buy you the happiness, like real happiness, inner happiness. It doesn't give you real purpose. You accumulate it and then leave it behind. You leave it behind. Some people make money their objective in life, so much so that you'll see them for all their life until death, all their purpose is making another goal of how to accumulate more and more and more.
In the meantime, they lose their marriage, they lose their children, they lose their relationships, they lose themselves and even their health. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين hadday dadku ilaahay ka baqaan oo ilaahay ka cabsadaan nolosha adduunyadu waxay noo noqonaysaa janno ku sugan saddex shay baa la yidhi ummaduhu way ku dumaan saddexda ummaduhu way ku horumaraan oo way ku dhismaan saddexda ummaduhu ay ku horumaraan waxa weeyaan waa runta iyo ammaanada iyo cadaaladda saddexda ummaduhu way ku dhismaan ninkii doonay inuu ummad dhiso ninkii doonay qoys inuu dhiso ninkii doonay mujtamac inuu wax u taro bay culimmadu leeyihiin saddexdaa khasladood waa in laga helaa ammaano waa in laga helaa waxa lagu dhiibay ama reerkaaga ha noqoto ila nin walba reerkiisa waa ka mas'uul ama meherad qof leeyahay ha noqoto ama mas'uuliyad hoose ha noqoto ama mas'uuliyad ummadeed ha noqotee wixii lagu dhiibay waa in sideeda lagugu yimaadaa waayo ilaahay baa ku arkaya oo ku maqlaya ammaana iyo sidqi waa inuu yeeshaa qofka muslimku sidq dadka run uu sheeg waligaa been ha sheegin oo nabigeenna calayhi salaatu wassalaam saxaabadu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuulallah ninka mu'minku fulo ma noqon karaa haa waa noqon karaa buu rasuulku yidhi ninka mu'minku ma aragtaanay bakhayl ma noqon karaa wuu noqon karaa buu rasuulku yidhi markaabaa nebiga lagu yidhi nebi allow ninka mu'minku beenaale ma noqon karaa markaabuu nebigu yidhi mu'minku beenaale ma noqon kara buu yidhi iimaanka iyo beentu isma galaan beentu qofka shaki bay ku abuurtaa shaki iyo waswaas iyo cabsi bay ku abuurtaa halka runtuna qofka mu'minka ay siisa ma aragtana nabad uu ku helo cadaaladna qofka muslimku waa inuu yeeshaa cadaalad labada ilmoodeed wada dhashay baa la rabaa inaad u cadaalad samaysid saxaabi baa nebi maxamed ula yimiday inankiisii buu wadaa farasna uu wadaa markaa buu yaa rasuulallah wiilkan waa wiilkaygii carruurta isagaan ugu jecelahay faraskana isagaan u hadiyeyey buu ka yidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi walaalihiisii isaga la dhalatayna ma wada siisay fardahaasoo kale ma wada siisay maya ma siina laakiin isagaa akhlaaq wanaagsanoo isagaan la jeclaaday markaa buu nebigu yidhi waryaa ama wada sii ama ka daa buu nebigu ku yidhi anigu dulmi mara ka noqon maayo buu nebigu yidhi markhaati ka noqon maayo dulmigaad samaynaysa labada ilmoodeed wada dhashay ayay shareecaddu ku leedahay u cadaalad samee oo ka ha u kala eexanin hadday noqoto wax siina dhaxal bay leeyihiin oo dhaxalkana looma dardaarmee nin walba dhaxalkiisu wuxuu qaadanaya suuratu nisaa iyo suuratu albaqara ilaahay jalla wacala uu kaga warramay saddexna ummaduhu way ku dumaan saddexda ummaduhu ay ku baaba'aan ay ku dumaan waxaa ka mida bay culimmadu leeyihiin saddexda ka soo horjeeda weeyaan sidqiga waxaa ka soo horjeeda waa beenta ammaanada waxaa ka soo horjeeda waa khiyaanada cadaaladdana waxaa ka soo horjeeda waa dulmiga inaad cadaalad yeelataa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad ammaano yeelataa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad runsheega noqotaa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad khiyaanada iska daysaa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad beenta ka dhowrsoonaata alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad dulmiga iska daysaa alla ka cabsi baad u baahan tahay waxyaabaha mukhaalafaadka waxaa ka mid dadka soomani qaarkood inay suxuurta ka tagaan oo cashada ku kaaftoomaan oo qofku yidhahdo waa cashaynayaa suxuurna cuni kari maayo dooni maayo suxuurtu waa sunne ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u sunneeyey rasuulkiisii ummaddan sooman sal alla alay wasalam inay suxuurtaan barakaana ku jirta khayr baana ku jira way cashada iyada ka khayr iyo baraka badan wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka suxuurta barakaa ku jirtay buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh alimaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay fiihi alxahu cala asuxuur
xadiidkaasi waxaa ku jira in laysku boorinayo suxuurta ayaa xadiidkaa ku jira waajmaca alculamaa'u cala istixbaabi culimmada muslimiintu waxay isku waafaqeen oo ku jimacsan yihiin in maxaan ku idhaahdaa suxuurtu ay sunno tahay ayay isku waafaqsan yihiin waatuu nebigu lahaa xadiidka ibn mascuud ibnu cabbaas radi allahu tacaala canhu innaa macshara alambiyaa umirnaa an nu'akhira suxuurana haddaanu nahay jamaca iyo kulanka ambiyada waxaana la faray suxuurta inaan dib u yara dhigno wa nucajila futuurana afurka yagana dedejinno wa an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina salaadda markaanu ku jirnana gacanta midig bidixda dusha inaanu ka saarno ayaana la amray waatuu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi fi salaa xalwadayna way bislaatay xalwada inay bislaato waxaa lagu ogaadaa saliidda amaan dhan ku daraysa dib ayay usoo tufeysaa koob iyo bar subag ayaa ku sameeyay hadda way soo tuftay intii u badneed waa ka qaaday intaana ka qaadaya loos ayaa ku dari doonaa sharxaad ahaan kadibna waa miiri doonaa xalwada way bislaatay hal saac saarneed oo kaamil ah hadda marka xilligii la miira ayaa soo gaarnay insha allah kala aad ku ogaa kartid xalwada inay bislaatay waa hal meel iskugu imaanaysa isku soo aruureysaa laakiin marka ceeriin tahay isku soo aruureyso waa miiri doona insha allah xalwadan aad iyo aad u fududahay ka faa'iideysta sameysta waa hal kiilo insha allah Losing is part of winning. Without a loss you will never learn. Without a loss you will never grow. Just because you didn't get it right the first time doesn't mean you won't get it right the second time. You may fail 7 times, but it only takes one shot to win and to change your whole life. Understand this again. Losing is part of winning. You are a winner. Push yourself. ugu dambeyntii sidan quruxda badan ay xalwadeena ku soo baxday inaba caadi ma ka faa'iideysta sameysta hadda ilaa intaan video soo gaarto kaaga mahad celinay fadlan ku cajib laak isaar aad qabto comment ila soo wadaag asxaabtaada la sii wadaag ciidul mubaarak salaamullaahi calaykum